kulanti habboon saaxiibayaal dhammaantiinba halkani waa Garaa TV. qodobada aad xilligani ku daawan doontaan wararkeenana waxaa ka mid ah Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo ku dhaliilay madaxweynaha maamulka Galmudug inuu xayiray fulinta waxyaabihii lagu heshiiyay 27 May. madaxweynaha maamulka Jubbaland oo bedelaya ku-xigeenkiisa Maxamuud Sayid Aadan si loo qanciyo shacabka gobolka Gado. siyaasiyiinta gobolada waqooyi ee uu horkacayo gudoomiyaha aqalka sare oo mar kale ku eedeeyay madaxweyne Farmaajo inuu faragelin ku hayo gudiyada doorashooyinka. maxaa ku hoos duugan qodobada ay ku heshiiyeen wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada Soomaaliya iyo Kenya? wararka Garaa TV ayaad ku daawan doontaan. iyo Maayir Cabdikariin Axmed Moogo oo doorashadiisu ay ruuxday magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland. qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan haddii Rabbiga weyne raalli ka noqday. diyaar garooba saaxiibayaal. isku soo laabasho habboon mar kale daawadayaal, halkani waa Garaa TV. xasuusnow haddii aad joogtid waqtiga salaada soo guda waajibka alle ee ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada fiidiyowgan. aynu ku bilownay saaxiibayaal. Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Qaranka Maxamed Xuseen Rooble ayaa ku dhaliilay madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor inuu caqabad ku noqday isla markaana uu xayiray fulinta qodobadii ka soo baxay heshiiskii magaalada Muqdisho lagu gaaray 27 May. madaxweynaha maamulka Galmudug ayaan weli soo gudbin xubnaha bedelka ku imaanaya ee gudiyada doorashooyinka heer federaal kadib kala shaandhayntii ay ku sameeyeen gudiga uu magacaabay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble. qodobkani la xiriira dhamaystirka gudiyada doorashooyinka ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed waa bilowga ama furaha doorashooyinka dalka ee 2021 taasi oo mar hore ay soo gudbiyeen xubnaha matalaya dhammaanba madaxda maamul goboleedyada, hase yeeshee weli laga sugayo madaxweynaha maamulka Galmudug. balse Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Qaranka oo xilligani laga sugayo inuu muddo 60 cisho dalka uga qabto doorashooyinka baarlamaanka iyo tan madaxweynaha ayaa dib u dhacaasi si weyn ugu canaantay madaxweynaha maamulka Galmudug Qoorqoor, isagoo uga digay in uusan caqabad labaad ku noqon heshiisyadii ugu dambeeyay ee laga gaaray arrimaha doorashada. xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa ku dhaliilay dowlad goboleedka Galmudug inuu yahay maamulka kaliya ee aan weli soo gudbin liiska laga sugayay ee bedelka xubnaha cabashada laga keenay gudiyada doorashooyinka ee heer federaal, kuwaasi oo mar hore ka soo dhammaaday madaxda kale ee maamul goboleedyada. madaxweyne Qoorqoor ayaa la tilmaamay inuu caqabad ka wajahayo soo magacaabista xubnaha bedelka ku imaanaya ee gudiyada doorashooyinka maadaama ay faragelinayso filla Soomaaliya sida wararka qaar ay sheegayaan. sababaha dib u dhigay in Galmudug ay soo magacawdo gudigaasi waxaa lagu tilmaamay in arrintani ay ku lug leedahay madaxtooyada Soomaaliya isla markaana ay doonayso in la keeno xubno taageersan madaxweyne Farmaajo. afayeenka xukuumadda Ra'iisul Wasaare Rooble Maxamed Ibraahim Macalimo ayaa sheegay in Ra'iisul Wasaaruhu ka codsanayo madaxweynaha Galmudug Qoorqoor inuu si dhaqso leh u soo gudbiyo liiska xubnaha Galmudug ee gudiyada doorashooyinka heer federaal. qoraalkani ka soo baxay xafiiska Ra'iisul Wasaaraha ayaa lagu yiri madaxda dowlad goboleedyada inta badan waxay Ra'iisul Wasaaraha u soo gudbiyeen liiska wax ka bedelka gudiyada doorashooyinka ee dib loo eegayay. waxaase weli laga dhursugayaa maamulka Galmudug oo ah dowlad goboleedka kaliya aan weli soo dirin maadaama waqtigu uu soconayo. shacabka Soomaaliyeedna ay doonayaan in la dardargeliyo howlaha hirgelinta doorashooyinka dalka. Ra'iisul Wasaaraha dalka iyo gudiga heer wasiir ee loo magacaabay kala sifaynta gudiyada doorashooyinku waxay ka codsanayaan madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor inuu si dhaqso leh u soo gudbiyo liiska xubnaha Galmudug ee laga sugayo muddada toddobaadka ayaa lagu yiri qoraalkani ka soo baxay xafiiska Ra'iisul Wasaaraha. Ra'iisul Wasaare Rooble ayaana u muuqanaya mid ka caraysan dib u dhaca maamulka Galmudug maadaama uu isgurayo waqtiga kooban ee loo qabtay in dalka lagu gaarsiiyo doorashooyinka baarlamaanka iyo tan madaxweynaha, iyadoo ay ku jidhay heshiiskii 27 May in 60 cisho gudahood lagu soo gabangabeeyo waxa oo dhan.
dowlad goboleedyada Puntland, Hirshabelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland ayaa horay u soo magacaabay gudiyada doorashooyinka ee heer federaal kadib kala shaandhayntii lagu sameeyay xubnahaasi waxaana weli laga dhursugayaa madaxweynaha maamulka Galmudug Qoorqoor. dadka arintani u dhuun daloola ayaase sheegaya in madaxtooyada Soomaaliya ay qayb ka tahay dib u dhaca ku yimid soo magacaabista guddigani maamulka Galmudug maadaama ay xiriir dhow la leedahay madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor isla markaana ay doonayso inay saameyn dadban iyo mid toosaba ku yeelato gudiyadaasi. arintani waxaa sidoo kale ka walaacsan xubnaha midowga murashaxiinta mucaaridka kuwaasi oo si weyn uga foojigan in madaxtooyadu ay mar kale xubna ku soo dhex darsato gudiyada doorashooyinka ee dalka maadaama kuwii hore khilaafkooda uu muddo soo jeetamayay. xubnaha midowga murashaxiinta mucaaridka ayaa heshiiskii magaalada Muqdisho kadib waxay gacanta u geliyeen ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble 67 xubnood oo ay ka qabaan cabasho isla markaana ku jira gudiyada doorashooyinka kuwaas oo ay ku kala eedeeyeen inay ka tirsan yihiin hay'adaha kala gadisan ee dowladda Soomaaliya sida nabad sugidda, shaqaalaha madaxtooyada iyo kuwa taageerada madaxweyne Farmaajo. iyadoo intaasi kadib guddi uu magacaabay ra'iisul wasaaruhu ay soo saareen 34 xubnood oo ku dhex jiray gudiyadaasi isla markaana ay tilmaameen inaysan soo buuxin shuruudihii looga baahnaa. isjiid dheer kadib oo murashaxiinta qaarkood ay ku qanci waayeen kala sifayntaasi waxay markii dambe isku raaceen in loo hoggaansamo baaritaanka guddigaasi heerka wasiirada lagana soo magacaabay xafiiska ra'iisul wasaaraha. waa hagaag saaxiibayaal qaybaha hore ee wararka muuqaal baahiyaha Garaa TV ayaa daawanaysaan. madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe ayaa xilligani ku howlan sidii uu u bedeli lahaa ku-xigeenkiisa Maxamuud Sayid Aadan iyada oo laga duulaya sababo dhowr ah oo isbiirsaday isla markaana ku qasbaya maamulka in kursigaasi la bedelo. madaxweyne Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe ayaa ku-xigeenkiisa Maxamuud Sayid Aadan uu soo jeediyay inuu qaato kursi ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka dowladda Soomaaliya isla markaana uu noqdo senator danaha maamulka Jubbaland ka difaaca dhinaca dowladda Soomaaliya. tallaabadani waxa uu doonayaa madaxweynaha maamulka Jubbaland inuu ku qanciyo ama uu ku soo jeeto shacabka gobolka Gado maadaama xilligani aysan arki karin madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan isla markaana ay u aqoonsan yihiin dabadhilif Axmed Madoobe. waxaana siyaasadda Jubbaland uu ku matalaa madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland dadka gobolka Gado. senator Fartaag oo haatan ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka aqalka sare ee baarlamaanka dowladda Soomaaliya horeyna u soo noqday madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland ayay wararku sheegayaan inuu Axmed Madoobe doonayo in mar kale uu qabto xilka uu hadda ku fadhiyo Maxamuud Sayid Aadan ee madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland. madaxweyne ku-xigeenka koobaad ee maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo maalmihii la soo dhaafay safar ku joogay deegaanka Banyooley ee duleedka Balad Xaawo ayaa diidmo iyo dibadbaxyo kala kulmay xubnaha beeshiisa ee ku sugan deegaanadaasi isla markaana uu ku matalo siyaasadda maamulka Jubbaland. diidmadani ballaaran waxay banaanka soo dhigtay sida ay shacabka gobolka Gado uga soo horjeedaan madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland oo iyaga ku matala kursiga waxayna ugu yeerayeen erayo ay ka mid ahayd dabadhilif iyo nin dadkiisa iibsaday. inkastoo aanay kaamaradaha warbaahintu qabanin wixii uu kala soo kulmay Banyooley Maxamuud Sayid Aadan haddana dadka arintani u dhuun daloola ayaa la xiriirinaya dalabka Axmed Madoobe ee ku aadan inuu qaato kursiga senatarka aqalka sare mid saameyn ku leh diidmada ay dadka deegaankaasi kala hor yimaadeen Maxamuud Sayid Aadan. madaxweynaha Jubbaland waxa uu door bidayaa in senator Fartaag oo laga dhiga madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland ay taasi soo leecin karto dadka gobolka Gado oo haatan ka irdhoobay maamulkiisa isla markaana aan u aqoonsanayn madaxweynaha saxda ah ee Jubbaland. ilaa iyo imika ma cadayn madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland oo ku qancay
soo jeedinta Axmed Madoobe ee la xidhiidha inuu qaato senatarkaasi ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya isla markaana uu iskaga tanaasulo xilka madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland. inkastoo Maxamuud Sayid Aadan uu ka mid yahay siyaasiyiinta aadka ula shaqeeya Axmed Madoobe lana dhacsan siyaasadiisa, haddana waxa uu door bidayaa in Maxamuud Sayid Aadan uu jooga kursigaasi aan dib loogu soo celin karin saaxada gobolka Gado. madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaana xilligani dadaal xoogan ku bixinaya sidii loo qancin lahaa shacabka ku dhaqan gobolka Gado isla markaana looga dhaadhicin lahaa inay qaataan nidaamka maamul ee magaalada Kismaayo. waxaana tira dhowr jeer Axmed Madoobe uu isagu adeegsanaya odayaasha dhaqanka iyo dadka deegaanka uu isku dayay inuu waanwaan la furo shacabka gobolka Gado oo markaasi muhiim u ah maamulka Jubbaland, ase yeeshee dhammaantoodba waa ay guuldaraysteen isku dayadaasi. sababaha guuldarrada tallaabooyinka Axmed Madoobe ayaana lagu sifeeyay kuwa ay dhabarka ka tooganayso dowladda federaalka ee Soomaaliya, qaasatan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo markaasi ciidankii ugu badnaa sanooyinkii ugu dambeeyay ku daadgureeyay gobolka Gado ee koonfurta waddanka. dowladda Soomaaliya waxay sidoo kale ka dhistay gobolka Gado maamulo ka madax bannaan Jubbaland kuwaasi oo toos u tagaya xukunkoodu magaalada Muqdisho. dowladda Soomaaliya waxay ku gacan saydhay doorashadii uu ku soo baxay madaxweynaha maamulka Jubbaland dabayaaqadii 2019 xilligaasoo Axmed Madoobe qudhiisu uu si weyn iskaga xakameeyay dowladda Soomaaliya. waa hagaag saaxiibayaal shabakada wararka ee Garaa TV ayaad nagala socotaan. golaha siyaasiyiinta ee ka soo jeeda gobolada waqooyi ee Somaliland ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku eedeeyeen inuu weli faragelin ku hayo gudiyada doorashooyinka ee gobolada waqooyi. golahani waxaa majaraha u haya gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka dowladda Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo khilaaf adag uu kala dhaxeeyo madaxtooyada filla Soomaaliya. golahani oo iskugu jira siyaasiyiin iyo xildhibaano ka kala tirsan labada aqal ee baarlamaanka dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo weli wado faragelin ka dhana gudiyada doorashooyinka gobolada waqooyi ee Somaliland, waxayna ku eedeeyeen inuu jabiyay heshiiskii ahaa in magacaabista gudiyada ay ka tashadaan ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha aqalka sare iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed. qoraal ay soo saareen ayay ku sheegeen inay u cadaatay in si toos ah madaxweyne Farmaajo uu soo farageliyay hawshii gudiyadii wasiirada ee ra'iisul wasaaruhu u xil saaray kala saarista gudiyadii dacwadda laga qabay markii uu amray in ay dib u soo celiyaan xubno ka mid ah shaqaalaha dowladda oo ay horey uga saareen isla markaana uu ka mid yahay Qadar Xiriir Xuseen oo Farmaajo u rabo gudoomiyaha guddiga doorashada ee gobolada waqooyi sida ay ku sheegeen warmurtiyeedkooda xildhibaanadaasi. xildhibaan Xuseen Carab Ciise oo akhrinayay shirka jaraa'id ee golahani ka soo jeeda gobolada waqooyi ayaa sheegay inuu madaxweyne Farmaajo mid ugu yeeray wasiirada ka soo jeeda Somaliland iyo odayaasha dhaqanka oo doonayay inay iska bedelaan xubnaha shaqaalaha dowladda, isagoo sheegay inuu culays ku saaray inay arintaasi iskaga haraan. madaxweyne Farmaajo ayay sheegeen inuu gacantiisa ku qortay 5 xubnood ee xukuumaddu soo magacaabi lahayd ee ka mid ah gudiyada doorashooyinka kala duwan ee Somaliland, waxayna ka digeen in la soo saaro liisas gudiyada doorashooyinka Somaliland oo aan la isku afgaranin. ugu dambeyntii ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda qaranka Maxamed Xuseen Roble ayaa waxay ugu baaqeen inuu shaqadiisa qabsado maadaama uu isagu mas'uul ka yahay howlaha doorashada iyo hirgelinta heshiiskii 27 May lagu gaaray magaalada Muqdisho. siyaasiyiinta gobolada waqooyi waxay sheegeen in madaxweyne Farmaajo uusan weli joojin faragelintii uu kol hore ku hayay gudiyada doorashooyinka xubnaha gobolada waqooyi ee doorashadoodu ay ka dhacayso magaalada Muqdisho, iyagoo sheegay inuu xilligani cadaadis saarayo xubnaha wasiirada ee uu magacaabay ra'iisul wasaare Roble. dhinaca kalena gudiyadii ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble u xil saaray kala shaandhaynta xubnihii
ay midowga murashaxiintu ka soo gudbiyeen cabashada ku aadan inay ka tirsan yihiin shaqaalaha dowladda iyo hay-adda nabad sugidda qaranka ee NISA ayaa waxaa ku soo baxday fadeexaad culus kadib markii la ogaaday in ay sii daayeen xubno ka tirsan shaqaalaha rayidka. xubnaha la fasaxay oo ay gudiyadaasi sheegeen in aysan ka tirsanayn shaqaalaha rayidka ayaa ka mid ahaa 67 xubnood ee cabashada ay ka gudbiyeen xubnaha midowga murashaxiinta mucaaridka kuna eedeeyeen inay u shaqeeyaan dowladda madaxweyne Farmaajo. fadeexadani waxaa haatan isla dhex maraya ama soo bandhigaya xubnaha midowga murashaxiinta mucaaridka oo sheegaya in qaar ka mid ah xubnihii ay magacyadooda gudbiyeen dib lagu ogaaday inay ka tirsan yihiin shaqaalaha rayidka ee dowladda, iyagoo tilmaamay inay sii daayeen wasiirada uu magacaabay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. waa hagaag saaxiibayaal, wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa wadahadal uu la yeeshay dhigiisa Kenya waxaa looga wada xaajooday qodobo dhowr ah oo quseeya xiriirka labada wadan iyo sidii dib loogu soo celin lahaa safaaradihii labada dal oo albaabada loo laabay dhowrkii bilood ee u dambeysay. wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya Rachel Omamo ayaa qadka telefoonka isku weydaarsaday muhiimadda ay labada dal u leedahay dib u soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed, waxaana kulankaasi ka soo baxay isfahan buuxa sida lagu sheegay qoraallo ay soo saareen labada wasiir arrimaha dibadeed ee Soomaaliya iyo Kenya. waxaa jiray qodobo ay si hoose uga wada hadleen labada wasiir isla markaana aan loo soo bandhigin warbaahinta, laakiinse xuuraansi lagu soo helay kuwaasi oo ay ka mid yihiin arrinta qaadka ee ay joojisay dowladda federaalka ee Soomaaliya isla markaana Kenya ay muddo dheer ku taamaysay in dib loo fasaxo. wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa u sheegay dhigiisa Kenya in dowladda Soomaaliya ay diyaar u tahay wax kasta ay u aragto inay dani ugu jirto shacabka labada wadan haddii ay noqon lahayd isku socodka ganacsiga iyo arrimaha siyaasadda. waxaana labada wasiir ay iskaga afgarteen arrinta dib u fasaxidda qaadka ay joojisay dowladda Soomaaliya in loo saaro guddi gaar ah kuwaasi oo ka shaqeeya nidaamyada ay suurtagalka tahay inuu dib ugu soo laabto ganacsigaasi ay Kenya kaga macaashi jiray gudaha Soomaaliya. labada wasiir waxa ay dib u xaqiijiyeen baahida loo qabo in si degdeg dib loogu furo labada safaaradood ee Soomaaliya iyo Kenya ee Muqdisho iyo Nairobi, waxayna ku nuuxnuuxsadeen muhiimadda ay leedahay in la hagaajiyo xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhaxeeya labada wadan. wasiiradu waxay muujiyeen rajo weyn oo ah in la hormariyo ganacsiga, amniga iyo xiriirka dhaqan ee ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya sida lagu sheegay qoraalka ay soo saareen wasiir arrimaha dibadeedka Soomaaliya iyo Kenya. ugu dambeyntii ayay ku heshiiyeen in la sii wado mareennada diblomaasiyadeed ee labada wadan ee isgaarsiinta u dhaxeeya labada caasimadood iyo dhammaan arrimaha xiriirka diblomaasiyadeed iyo istaraatiijiyadda. Soomaaliya iyo Kenya ayaa hadda ka shaqeynaya dib u soo celinta xiriirkoodii diblomaasiyadeed oo waayahani mugdi badani uu hareeyay, balse weli waxaa jira marxalado markii hore xumeeyay xiriirka labada wadan oo ilaa haatan aan xal waara laga gaarin. waa hagaag Somaliland ayaynu u weecanaynaa magaalada Hargeysa ee xarunta Somaliland ayaa si weyn u ruuxantay kadib markii uu soo baxay maayarka ay sida weyn u doondoonayeen shacabka ee Cabdikariin Axmed Mooge. xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Hargeysa ayaa doortay maayarka cusub kadib doorasho ka dhacday gudaha magaaladaasi. golaha deegaanka degmada Hargeysa ayaa xilka maayarka caasimadda oo si weyn la iskugu hayay waxay ugu dambeyn u doorteen Cabdikariin Axmed Mooge oo ka tirsan xisbiga mucaaridka ee wadani. Mooge ayaa sidoo kale ahaa murashaxii ugu codadka badnaa doorashooyinkii deegaanka ee dhawaan dhacay, waxaana uu helay codad kor u dhaafaya 26,000 oo laga siiyay magaalada caasimadda ee Hargeysa. ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu naga dhigo kuwa kitaabkii ay ku dhaarteen ilaaliya oo dadkooda u shaqeeya, ayuu yiri duqa Hargeysa hadal uu u jeediyay warbaahinta doorashadiisa kadib. doorashada ayaa ahayd mid loo dhan yahay, waxaana Cabdikariin Axmed Mooge si aqlabiyad leh ugu doortay duqa Hargeysa xubnaha 17 ah ee golaha deegaanka.
sidoo kale waxaa maayir ku-xigeen loo doortay Qadar Axmed Nuur oo ku soo baxay doorashadii ka dhacday magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland doorashadani oo gacantaag ahayd waxaa sidoo kale goob joog ka ah wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo bogaadiyay qaabka ay u dhacday waxaa sidoo kale baraha bulshada iyo deegaanada Soomaaliland ka bilowday dabaaldegyo lagu soo dhaweynayo doorashada duqa cusub ee Hargeysa oo ah wiilka uu dhalay Allah u naxariistay fanaankii weynaa ee Axmed Mooga Liibaan wararkii ugu dambeeyay ee gayiga Soomaalida waa naga intaas nabadgelyo